شعيب ابن مدين ودريدي نبي إبراهيم عليه السلام قارك لا يا شيخ إنها دريدي نبي نوح عليه السلام نبي شعيب عليه السلام وحو كل شيء رير مدين وحنا دقنايين مقالات قطها الأردن رير مدين سيدوك لو حلو يقانا أصحاب الأيكا waxaanay caabudi jireen geel la dhaho ayka oo geedkaas ay ilaahay ka dhigan jireen intaan loo soo dirin nabi shucayb alayhi salaam markii alla soo saaray wuxuu kala dagaalamay qoomkiisa geedka inay caabudaan in badan wuxuu isku dayay inuu ka celiyo qoomkiisa inay caabudaan geedka waxaan markasta u jeedi jiray in alla caabudaan oo kaliya laakiin qoomkiisii way ka diideen waana ka jeesteen sidoo kale reer Madian waxa la sheegaynaayeen burcad oo dadka ay dhici jireen iyagoo wadooyinka isbaaro dhiganaya qofkii bixin way cashuurtaas ama lacagta ku xujeeyeenna way ka celin jireen wadada xitaa waxa la sheegay in tigitaanka xajka caqabad ku noqdeen sidoo kale qoommadeen waxay ku tarax tageen qiyaanada oo miisaanka ay dhimi jireen oo marka wax ka iibsanayo miisaanka hoosto ayuu hoos u dheeran jiray oo marka wax iibinayaan miisaanka ay dhimi jireen marka iyagu iibsanayaanna miisaanka ay badsan jireen nabi shucayb alayhi salaam wuxuu isku dayay qoomkiisa inuu dhibaatooyinka xunxun oo dhan u ka dheereeyo qoomkiisa si kasta uu wacdiyay si kasta uu sheego inna may raacin ilaa in yar oo Ilaahay naxariisto mooyaane xitaa madaxweynaha qoommadeen waxay isku dayeen intii yarad ee raacay nabi shucayb alayhi salaam inay dib ugu soo celiyaan geedka ay caabudi jireen laakiin aan kaas ku guul dareysteen nabi shucayb alayhi salaam wuxuu markasta ku oran jiray cadaabka layaan ugu dhicine ee kaalaya aniga soo raaca kadib sidii lagu yaqaanay qoom kasta madax adag ay dhaheen cadaabkaas sheegaysid bal loo keen kadib nabi shucayb alayhi salaam ayaa la baryay waxaan u dhahay allahna kala saar anaga iyo qoomkan kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa qoomkiisii cadaab u soo diray wala cadaabkaas oo kala baxay saddex nooc markii koobaad wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku saliday kuleel wax laga xiray hawadii nafsadii ayaa dhibta ku noqotay kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa daruur ag dhigay meel u dhow halkii degnaayeen kadib waxay moodeen inuu roob soo daayo ama roob soo socdo kadib ku yaaceen oo daruurtii ay hoos fadhiisteen gebigoodiba kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dhulgariir ku saliday malakul jibriilna oo ku soo qayliyay markaasuu malakul jibriilna ku qayliyay halkaas ay qoomkii dhibta badnaa ee nabigoodan caasi ku halaagsameen oo ku maldeen intii rumaysay nabi shucayb alayhi salaam allana raacday waxaana noqdeen dad ilaahay caabuda oo alla ku xidhan intaas ay ku eegtay maanta qisadii nabi shucayb alayhi salaam inta ku kulmina qisada lamid wax naga tagnaa sidaas Ramadan kariim وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل